ويجا conflict resolution الوحى اللي أساس معها وحل ولا مارمان وضياشو ومهم وسكتر الله إنكري كريم الصومالي أيربورت مقدسو بنك عنده موجود وشركة عدالة هيستا بالله hirgelinteeda aan ku jeclaan lahaa waxay tahay in la soo dedejiyo intaan dastuurka la ansixin ka hor baarlamaanka daawadayaal habeen wanaagsan wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka daranka shacabka siyaasiga oo laga baratay inaan ka soo gudbino TV-ga caalamiga ah oo Cable TV ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska barnaamijka daranka shacabka siyaasiga ah waxaan soo qaadanaa qodob aan isla leenahay aad buu xiiso badan yahay oo idinku aad u soo codeysaan waliba magaca shaashada ku yaala inta badan aad u codeysaan qodobada aad isleedihiin waa muhiim toddobaadkan in la falanqeeyo barnaamijka daranka shacabka siyaasiga caawa waxaan ku falanqeyn doonaa dhawaan waxa soo gabagabay shirkii qaramada midoobay ka socday dalka Mareykanka dabcan halkaas waxa ka qayb galay dhammaan dawladda federaalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo midba mar ka qayb galay dadweyne badan baa isweydiinaya maxay tahay sababta keentay ama baahida keentay waa dhacdo uga dadweyne badan baa qaba maxay tahay sababta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay labaduba uga qayb galeen shirarkii ka socday magaalada dalka Mareykanka iyo waliba sababta keentay in arintaasi ay dhacdo madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihiis midna qodbadii qaramada midoobay u jeediyo midna uu ka soo qayb galay shirarkii gaargaarka ahaa halka adduunyada inteeda kale mas'uuliyiintii wadamadaasi xukumay ay goobtaasi tageen shirkana ku soo dhameysteen dabcan iyo arrimihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka soo kordha arrimahaas ayaan falanqeyn doonaa barnaamijka caawa waxaa marti igu ah oo madasha la fadhiyo oo la falanqeyn doona haddii la yiraahdo ambassador Cabdirashiid Aadan Said oo ah safiirka wareega ambassador Cabdirashiid barnaamijka waxaan ugu xulanay bilow ilaa dhamaad shirka ka socda qaramada midoobay wuxuu kamid ahaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhex joogay oo dhex fadhiyay bilow ilaa dhamaad caawa ayuu noo sheegi doonaa wixii halkaas ka dhacay iyo sababahaasi sida ay u dhaceen sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka oo igala qayb qaadanaya Dr. Maxamed Cabdi Cumar oo ah kalkaaliye professor ee kulliyadda London Metropolitan University ee ku taala dalkan Ingiriiska sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qadka taleefanka ku jira Shukri Saciid oo ah saxaafi Soomaaliyeed oo inta badan falanqeysa arrimaha siyaasadda Shukri waxay ku nooshahay dalka Talyaaniga waana saxaafiyad Talyaani ah kana lagana wareysto ama falanqeysa arrimaha siyaasadda dhanka qoraalada wargeysyada idaacadaha iyo waliba idaacadaha la iska arko ee dalka Talyaaniga barnaamijka caawa qayb ay ka tahay waxaan ka cudur daaranaynaa barnaamijka caawa waxa qayb ka ahaa afayeenka xukuumadda Cabdisalaan Caato oo aan jeclayn inuu magaalada Muqdisho qad ka soo galo xogaa mashquul buu noqday sidoo kale barnaamijka waxa qayb ka ahaa Xasan Xalane oo ah aqoon-yahan aad wada garanaysa Xasan Xayle oo ah aqoon-yahan aad wada garanaysaan oo arrimaha siyaasadda falanqeeya asaguna caawa yara xoogaa waxba ku soo kordhay aan ilaahdo marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka daranka shacabka siyaasiga aad iyo aad u mahadsantahay waayahay Cabdirashiid gantaalka adoo kugu socdaa dabcan bilow ilaa dhamaad shirkii ka socday wiiga ka hor baad sii tagteen meesha diblomaasiyiin adigu aad ka mid tahay hawlahaad sii diyaarinayseen guud ahaan shirkii ka dhacay dalka Mareykanka qaab noocee ah ay u dhacay sideese Soomaalida loo tixgelinahay shirka ka dhacay dalka Mareykanka waa mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim runtii shirkan wuxuu ahaa horta hore iyo horaanba wuxuu kusoo beegmay 70 guuradii ka soo wareegtay kolkii dhidibada loo taagay ururka ay qaramada midoobay la yiraahdo ama UNO ummaduhu ku midoobeen ee fadhigiisu yahay New York dalka Mareykanka Soomaaliyana waxay kamid ahay dalalkii ugu horeeyay Afrika oo ka qayb qaata ama qayb ku yeesha ururkaas Soomaaliduna wax gaar ah ayay hadii jeeral ka tirsataa ama libin gaar ah ayay u haysaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waayo sida taariikhdeena aan ku ognahay kolkii dagaalkii weynaa ee dunida u dhamaaday dagaalkii labaad Soomaalidu kacdoonkii ay horseed ka ahaayeen ururka SYL iyo raggii hogaaminayayba kolkii ay tageen New York kontonaadkii waxay ku guuleysteen in la geliyo Soomaaliya oo gacanta Ingiriis ku hayay ama boqortooyada midowday ee UK in wixii la oran jiray maxmiyad ama trusteeship taasoo horseeday dhulkii Talyaanigu gacanta ku hayn jiray ee horey Ingiriisku uga la wareegay dagaalkii labaad in jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay horseedo in la cayimo in la gaarsiiyo Soomaaliya 1960 xorriyad marka Soomaalidu markasta waxay u ahayd jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa
meel xiriir ay lahaayeen haddii ay ahay waqtigii gobonnimadoonka iyo haddii markii qarannimada Soomaalidu ay gaadhay 1960kii kaalintii jimciyadda qurumaha ka dhaxaysay ka geysay diyaarintii loo diyaarinayay Soomaaliya marka maadaama sanadkan ay ku soo beegatay san ku sheegayba 7 guuradii ka soo wareegatay shirkaas waxaa ka soo qayb galay dhammaan xoogna u saaray dunida oo dhan dawladaha jira iyo ururada jira iyo dadooga u dhaqdhaqaaqa barnaamijyada kala duwan ee caalamka ka socda sida cimilada sida abaaraha sida horumarinta marka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sida adigu hadda sheegtay uga soo qayb galay wafdi xadle oo ka socda xafiiska madaxweynaha oo horseed ka yahay His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu sida adigu baad tilmaantayba shirka furitaankiisana ka qayb galay shirar gaara oo lagu bartilmaamsanayay xaaladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya runtii ka geystay qayb xoog leh oo soo bandhigay siyaasadda dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ay ku doonayso gaar ahaan lagu soo gabagabeynayo hiigsiga 2016 shirkii balmasalaba gaarka ahaa oo madaxweynaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa Ban Ki-moon ay wada gudoominayeen ayna ka soo qayb galeen madax badan oo ama wadamada dariska aan hayo IGAD iyo wadamo kale oo kamid yahay ra'iisul wasaaraha wadanka Britain Honorable David Cameron waxa diiradda lagu saaray oo looga hadlay sidii Soomaaliya loo gacan qaban lahaa wixii ay qabsootay waa qabsoomay wahulaha horyaala ee nabadgelyo ee dhaqaale iyo dawlad dhisid iyo dhameystirka intaasoo shir madaxweynaha ka qayb galaad leedahay laakiin khudbadii waxaa ka jeediyey madasha 7 guuradii ka soo wareegtay ra'iisul wasaare Cumar macnaha saas u dhahay madaxweynuhu maadaama uu gaar ahaan shirka iyo shirar kale oo iyaguna gaar ah oo looga hadlayay arrimaha Soomaalida uu qayb xoog la ka qaatay gudbiyana in siyaasadda dawladda Soomaaliya iyo halka xal marahayo iyo horumarka ilaa iminka 3 sano la soo gaaray waxa iyadana ku soo beegmay oo qaybtii labaad oo shirka waday oo ugu yimid ku soo gaaray magaalada New York sida sheegtay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya His Excellency Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo markaa qaybtii Soomaaliya ay ku lahayd shirkaas khudbadii sida adduunka kala socoteen guud ka jeediyay oo isaguna dhameystiray hawlihii uu madaxweynuhu ka hadlay iyo hawlo kale oo waxaan rabaa inaan mid kale kugu daro maadaama labaduba ay ka qayb galeen madaxweynuhuna shirar gaar oo ka qayb galay oo badan ra'iisul wasaarahuna uu khudbadii loogu talagalay qaran ahaan uu jeediyay shirarka gaarka ah wax natiijo ka soo baxday wali shacabka Soomaaliyeed ma arag maxaa ka soo baxay shirarka gaarka waxyaabaha muhiimka oo looga hadlayay waxay ahayd dawladaha caalamku maadaama ay iskarab istaageen jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hawl xooggan ku bixiyeen sidii dibadda loogu taagi lahaa dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliya ee imika sida tirtiibta ku socota ciidamo caalamka ka socdana ay joogaan hay'adihii kale oo caalamigaana ama haata World Bank IMF iyo dawladihii kale ay safaaradahoodii magaalada Muqdisho ay ka furanayaan dhammaan sidii bal wixii loo qabtay waa la qabtay waxa haray loo garab istaag lahaa bal misalan ba sidii loo abuuri lahaa ciidan federaaliya oo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay leedahay oo bedelaha aakhirka ciidamada tan AMISOM waxyaabahaas oo dhan iyo waxyaabo la midka ah iyo sidii Soomaaliya maqaamkeedii waxaa loo arkay inay Soomaaliya ka gudubtay halkii la oran jiray wadan gool daraysay ama wax la yiraahdo state gool daraysay hadda waxaa loo arkay state u baahan ama qaran u baahan in gadaal laga istaago oo hawlihiisa sidoo u dhameystay maxamed cabdi barfsor adigan ku imaado dabcan dadweyne Soomaaliyeed oo fara badan aqoon-yahano siyaasiyiin iyo khubaro badan baa waxay qabaan in maaragtay shirkii ay ka wada qayb galeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ay ahayd dhacdo ugub ah sharaxaad kooban ma naga siin kartaa sida aad u aragto qaabka noocaas siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay qabaan bismillaahir rahmaanir rahiim horta ku maadsantahay barnaamijkan aan kala soo qayb galnay adiga Durraan iyo dhammaan wariyaasha nala jooga Home Cable marka labaad waxaan rabaa inaan su-aasha tan hadda walaalkay ka hadlay iyo mid aad weydiisaba labada u soo dago waad ogtahay marxaladda Soomaaliya muddada ugu dambeysay 2 sano ahayd cilada badan oo xaq siyaasadeed iyo dhaqaale labaduba way haysatay
ciladahaas oo dhibaatooyin iyo culays badan hakad ku sameeyey horumarkii uu sameyn lahaa wadanka loogu talagalay oo ay ka mid ahayd dagaaladii iyo siyaasadeed ee xagga barnaamijsaradii soo dhaafay oo ay ka mid ahayd ciladihii badnaa ee madaxweynuhu markii dambe la kulmay oo dhanka maaragtay baarlamaanka oo laga keenay shirar badan oo lagu qabtay international community ay ku qabteen Soomaaliya oo ka mid ah kii airportka lagu qabtay oo lagu kulmay iyo kii ugu dambeeyay 29 bishii la qabtay ee xamar lagu qabtay isaga laftirkiisa oo aad muhiim u ahaa in looga hadlo dhibaatooyinka jira 29 baad saafilay waxaa soo baxay mugdi badan oo xag siyaasadeed iyo xagga dhaqaalaha labadaba ku saabsan fashilaad badan iyo arrimo badan oo hakad geliyay horusocodkii dawladana meesha aad uga muuqatay way isku dayeen international community in ay badbaadiyaan waa kuwii hadda markii ugu dambeysay wakiilka UN-ka iyo international community inta awoodda ku lehba ay baarlamaanka si toos ah u farageliyeen in arrinta laga hortago oo aan lagu sameyn taasoo ilaa hadda khatar u muuqata inay arrintaas u saameyn ku leedahay madaxda sare ee dawladda ciladahaas oo dhan waxay saameeyeen oo international community aad uga warqabeen inay fashilaad tahay oo dhibaato weyn oo hadda wadanka u soo baxday ay tahay taasina aan loo helo way kale iyo alternative kale oo waxaan laga badbaadin karo arrintan markaan u soo degay aaditaankii UN-ka waa runtii sida walaalka sheegay weeye 70 guuradii waxay ahayd UN-ka membershipna waxaa ka ah Soomaaliya laakiin ma aysan ahayn xiisa gaar ah loo qabo oo loogu danaynayo shirkaas arrimaha Soomaaliya lagu falanqeeyo sida UN-ku wuxuu helaa 3 bilood oo kaste report ku saabsan arrimaha Soomaaliya meesha ay marayaan wakiilada u jooga oo nina UN-ka kamid yahay nina uu kamid yahay African Union-ka uu kamid yahay igad baa joogto aydan report sida la mid ah gudbiso xaqiiqatan waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay mugdi badan iyo dhibaatooyin badan iyo horumar la'aan inay ka jirto Soomaaliya oo maanta lagu tilmaami karin sidii loo arkay in Soomaaliya ka ahayn waxa ku soo haray shirkii guud ee meesha ka dhacay iyo qaabkii Soomaaliya loola kulmay runtii waa fursad waxay ahayd lagu kulmi karo dhammaan dawladaha daneynaya arrimaha Soomaaliya ee maanta meesha ka jira oo ay ugu horeeyaan UN wadanka Ingiriiska runtii waa dadka juhdiga badan geliyay iyo kharashka badan geliyay in Soomaaliya wax noqoto wax ku qabtaan laakiin jawaabtii ay noqotay waxyaalihii aan hadda ka hadlay oo dhacay Soomaaliya oo ah taariikh ahaan dawladda maanta jirta ee federaalka ah marka midna waxay ahayd mid looga gudbiyo caqabadaha jirta sidii looga gudbi lahaa oo xasan lagu dhaliilayo runtii dhibaatooyin badan ay kala kulantay iyo jawaabo badan oo looga baahnaa anagoo runtii aan rabay in halkaan ku xuso shirkii ugu dambeeyay 29 aan halkaan Muqdisho lagu qabtay dhibaatooyinka ka soo gaaray maamulka sare ee dawladda oo runtii si aan ahayn mansab loola hadlay oo ay dhibaato oo ay dibsadeen wixii systemkii wax meesha ka dhacay iyo wixii looga hadlay taasoo base u ahayd higsiga 2016 oo noqotay inay international community ku sigato inay la wareegto sidii loo maamul lahaa arrimaha soo socda waayahay aan madasha u soo noqday aan fiiriyo shukri saciid ma marashaa hello طبعا qadka waxaa ku jira saxaafiyad talyaaniga ka howlgasha oo shukri saciid la yiraahdo dabcan waxaan rabnaa inaan dhowr su'aalood iyadana aan weydiino maadaama ay aad ugu dhuunduleesho arrimaha Soomaaliya iyo arrimahan aan caawa ka hadlayno shukri ma marashaa halo السلام عليكم habeen wanaagsan shukri ku soo dhawo barnaamijka daranka shacabka iyo siyaasiga waxaan rabaa inaan su'aasha koowaad ku weydiiyo waxaa ku soo gabagaboobay dalka Mareykanka shirkii qaramada midoobay 70 guurada dabcan shirkaasi maxay Soomaaliya ka faa'iiday waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waxay tahay isla shirkaasi waxaa ka qayb galay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya dad badan baa qaba inay tahay dhacdo uguba sidee ku dhici kartaa arrintaas baad isleedahay ku soo dhawo waa dhawaabo waa maadsantahay horta wax faa'iido ah oo muuqda oo la taaban karo oo Soomaaliya uga soo faa'iiday inaysan jirin ballanqaad iyo waxaas ma wax ballanqaad oo weyn xataa ma jiraan Soomaaliya sidaad u ogtiinba waxa loogu yeeray inay maadaama kala guurkii uu soo dhow yahay dawladdiina ay hadda 3 sano jirtay inay road mapkii meesha uu wax u marahayo ay warbixin ka bixiyaan bay ahayd waxa ugu muhiimsan oo loogu yeeray taasna saad u ogtihiin international community kuma uusan qancin barkee waa aad baa loo dhaliilay waxa qabadkii laga doonayay dawladdu inay 3 sano ay qabatay si kala guurka maaragtay road mapkiisaan u ognahay dastuurkii lama ansixin maxaydeen maamul goboleedyadii yar oo buuq badan ka taagan yihiin baa la sameeyey hay'adihii dastuuriga ahaa sidii maxkamadii dastuurka lama samayn
midii hadeer midii guddigii la sameynayay markii meesha la aadayay baa lagu dhawaaqay si degdega si looga dhigto justification in wax la sameeyey waxaasoo dhan oo qabyo ah iyo baa meeshii lala tegay reconciliationkii lama samayn waxyaabihii muhiimka u ahaa shuruucdii oo dastuurka oo sharciga la yidhaahdo mar electoral law lama samayn electoral law waxaasoo dhan international community Soomaaliya waa joogaan waana ka warqabaan waa la socdaan marka aad baa dawladda dhaliil loogu soo jeediyey mid waa midaas midda arrintan ugubka oo inuu prime ministerka iyo madaxweynuhu ay meesha isla tageen waxa weeye justificationka sidaan anagu ognahay oo la socono waxaa ku qornaa agendada waxaa ku qornaa prime ministerka Sharmaarka la casuumay oo ku qornaa maaragtay ku qornaa agendada madaxweynuhuna waa tegay sidaad u ogtiin prime ministerku 3 beri ka bacdi uu meeshii tegay marka madaxweynuhu wuxuu isku dayay inuu sidii walba caadada u ahayd oo xukunka u maroogsan jiray uu u maroogsado oo booskii agendada prime ministerku uu ku jiray uu asagu galo taasna international community iyo unadu waa u diiday waxaa la yiri justification tii looga dhigay agendada kuma aad jirtid agendada prime ministerka ku jira saas darteed isku daygina waa u suurtageli waaye laakiin waxaan u aragnaa taas inay keliya justification tahay barkee waxaan kaloo naloo sheegay in shir kale dhacay oo John Kerry iyo madaxweynaha Museveni ay isla yeesheen oo Soomaaliya looga hadlayay oo gooni ah taasna madaxweynuhu uu doonayay inuu ka qayb galo ayadana loo diiday oo ay u suurtageli weyday hadda marka waxaa u baahan in la ogaado sababta sidaas loo yeelahay shukri waxaan rabaa su'aal kale inaan ku weydiiyo adoo raalli ah hadda ka hor barnaamij baad igala qayb qaadatay tacadiga aan u bixiyey gabar Faadumo la yiraahdo oo saxaafiyada oo tacadi baa la ii geysta tiri waad u dadaashay si fiican baad yeeshay aakhirka Talyaaniga aad keentay hob hadda inay Talyaaniga iyo soonahaas kugula nooshahay sidoo kale idaacaddii Shabeelle wariyaashii xabsiga ku jiray muddada dheer oo la soo daayay waxaad ku guuleysatay adigu dadaal badan aad samaysay iyo asxaabtaadu inaad dalka Talyaaniga keentaan haddana waxay joogaan meelo kale oo Yurub ka mid ah hadda Soomaaliya waxaa ku xiran saxaafiyaal Soomaaliyeed saxaafiyad baa tahay Talyaaniga ka howlgasha sidee u aragtaa arrintaas waa arrin yaab loo mucjisa weeye markii waxa weeye waa wax horta aan adduunka caadiyan wadamada xataa dictatorada aan saas uga dhicin tacadiyada saas u fara badan oo isdaba jooga in suxuufiyada loo geysto in dumarka loo geysto dawladuna ayna wax ka qaban waxa ayaan daraa madaxweynaha qaranka wuxuu yiraahdaa oo aniga anba maraan u tagay oo wareysanayay uu igu yiri aniga waa la soo doortay oo meesha xoog kuma fadhiyo taas waa run oo waa xaqiiq laakiin ficil amarada uu ku kacayo oo ku dhaqmahayo inay ka fogtahay madaxweyne la soo doortay marka waxa yaab oo cajiib ah in hadda maxay universal TV iyo awil iyo shaqaalihii suxufiyiintii ka hawlgalayay xamaro hadda dhawaantan si aan sabab lahayn loogu tuuray barkee sabab waxay qabteen dad bay casuumeen xildhibaano ah oo dhiibanaya ra'yiga in la dhiibto sabab uma noqon karto in la xirxiro oo telefishinada la xiro suxuufiyadana la xirxiro hadday rabto dawladdu waxay dhihi kartaa programkaas sida adduunka la sameeyo ma isku dheelitirnay annagana in nala casuumay ahayd marka annaga mar kale dib ha loo qabto program kale oo annagana nala casuumo saan uga hadalno waxyaabaha oppositionku nagu soo eedeeyey inaan aysan xaqiiqda u dhaweyn la sameeyaa dadka inta la iska xaraysto marka waxay ku cadaanaysa waxyaabaha international community uga diidayaan haddana waxaan rabaa inaan kula wadaago oo kula qaybsado in dawladda mar dhow ay New York Washington ku noqonayso sidaan maqalay oo si degdega loogu yeerahay sababaha walaaca gelinaya international community-ga waxa weeye habdhaqanka madaxtooyada Soomaaliya oo ku baysgaraysan si awood muqoonsi iyo tacaddi
xorriyatul qowlka iyo wax dimuqraasiyanimadii wadanku higsanayayoo laga sugaya inay mandatekeedii sameeyaan ay kasoo horjeedaan. shukri mana anfacdo international communitygana ma ku qanacsana. shukri waa mahadsan tahay raallahow taas waa aragtidaada annaga daranka shacabka mas-uul kama nihin dabcan waxaan ku weydiinayaa su-aal kale shukri dabcan talyaaniga aad joogtaa aad baad ugu dhunduleeshay shirkii ka dhacay dalka talyaaniga xagga ganacsiga ku saabsanaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waraysi baad la yeelatay idaacadaha talyaaniga iyo jaraa'idada talyaaniga ku soo baxay waad is aragteen maxaa kamid ah waxyaabaha aad weydiisay iyo guud ahaan shirkii sida Soomaaliya uga faa'iideysay ma noo sharxi kartaa wallahi abba shirkaas anu waxaan aaminsanahay inaan wax Soomaaliya hadda ka faa'iideysatay oo aan ahayn in kasoo qaybgalka sidiisa waa faa'iiday u tahay meel waa loo qabtay oo Djibouti iyo Soomaalida waa la wada siiyay waa kasoo qayb galeen dad badan oo ballaaranna waa yimid baa la yiri oo 300 oo qof gaarayo gobolada ka yimid maxaa haydeen laakiin run ahaantii wax faa'iido ah oo uga qabsoomay markii adduunka oo dadka u tagayo asagoo balayn wata oo wax markii hore laga soo wada shaqeeyay wata oo dadka wax la fiixanayo oo dhiig la galayo yuu yimaada aweeye wasiiraa yimid oo xataa maaragtay kuwii ku habboonaa aysan ku jirin inay meeshaas yimaadaan madaxweynaha wuu tagay qadaa loo qaaday wasiirka gaashaandhigga oo talyaaniga qada meesha talyaaniga oo expoga ka geysay waa wax fiican haddii la tegay oo laga qayb galay anugu kama soo horjeedo laakiin Soomaaliya wax uga qabsoomay ma jirto waxaana la sheegayaa dadkii 300 ah oo madaxweynaha la yimid oo Soomaaliyeed in waxaan 15 qof ka badnayn ay ka noqdeen intii kalena ay iska firxadeen oo Yurub ku firxadeen taasna waxay leedahay dhibaatadeeda ay leedahay marka anugu waxa madaxweynaha waa u tagay waa waraysi baan ka soo qaaday waan arkay madaxweynuhu aad buu runtii u walwalsanaa markuu ila hadlayna hadalkiisa wuxuu igu bilaabay mooshinka kama keenin waraysi baan ugu tagay mooshinka unbuu aad iyo aad uga walwalsanaa nin walwalsan buuna ahaa walwalkaasna hata waa walwalka wadanka dhanna ka jira wadamada daneeyo dadka daneeyana haysta wadankiina dhibaatada ka taagan waxyaabo badan baan weydiiyey Ethiopia wadanka sida ay ka yeelayso Ethiopia cadaaday joogtaa waxay beledweynay joogtaa gaday joogtaa oo dadka xirxirtaay oo dadka laysa xamar bay joogtaa oo sirdoonkeedu joogaa villa Soomaaliya jooga waa wadan reconciliation la sameeyaa laleeyahay waa in reconciliation iyo dib-u-heshiin xataa Soomaaliya iyo Ethiopia oo dagaalkii 77 uu dhex maray baa loo baahan yahay in dib-u-heshiisiin lagu sameeyo dib-u-heshiisiin loo sameeyo Ethiopia waxa weeye annaga wadankeeda mana maamulan kadho peacekeepingkeegana kama soo qayb geli kadho dhexdhexaadna arrinteeda kama aha waxyaabahaasaan wax ka weydiiyey maamulka Juba waxa ka taagan iyo maaragtay gedo iyo la isku haysto oo dawladdiina ay mid leedahay madaxweynaha waxaan mid magacaabateen miyaad gobernatoriina idinku magacaabateen oo dawladda federaalka miyaa sax ah mise midda Jubbaland soo magacaabatay baa sax ah wuxuu igu jawaabay haddii labadooda lagu heshiin waayo mid saddexaad baa la dooranaya marka loola dawladda federaalka miyaa sareysa mise maamul goboleedka Jubbaland baa sareeya shukri aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaa barnaamijka nagala qayb qaadatay haddii aadan waqti noo haysana inaad qadka noogu jirto waa fiicnaan lahayd hal iyo su'aal iyo laba kale aan ku weydiiyo waxaan kusoo noqonayaa madasha safiire adaa mas-uul dowladeed maanta meesha noo fadhiya shukri waad arkaysaa qaabka ay u hadashay waa saxaafiyad Soomaaliyeed oo dee talyaaniga saxaafad Soomaali kuma ahan saxaafi waa saxaafiyad talyaaniga wax badanna Soomaaliya arrimaheeda ka qorta dabcan waad arkaysaa commentigeeda iyo say wax u bixisay waxaan rabaa su'aal inaan ku raaciyo hadday suuragal tahay sheekadii aan kaa kala gooyay oo ahayd maxaan ka faa'iidnay shirkii ayadana noogu dar soo dhow horta marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa walaashayn shukri inaan salaam halkan uga soo jeediyo sida adiguba sheegtana waa qof Soomaaliyeed oo saxaafiyad ah runtiina wax weyn Soomaalida iyo wararkeeda iyo Talyaaniga ay joogto ka qodha aniguna dhowr jeer aan arkay waxa samada wixii ka dhacay New York inaanay exactly wixii dhacay aysan la socon oo informationka ay ka hayso iyo midka anigu aan goobjoog ka ahaa oo hadda halkan fadhiya uu kala duwan yahay
marka walaasha waxaan u sheegi lahaa dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha hogaaminayay His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid inay yihiin team ama dad wada shaqeeya oo de golihii fulinta oo iswata ah hawshana ay kala lahaayeen ay meesha u yimaadeen dabadeedna ay sidaas oo guul leh ay ugu dhamaatay safarkii wada jirka ahaa oo marna madaxweynuhu yimid marna ra'iisul wasaaruhu soo gabagabeeyay howlwadeenadii kale oo golaha wasiirada qaar dadka socday iyo diblomaasiyiintii kale oo anigu ka mid ahaa ee shirka joogay runtiina ka qayb galayay shirarkii Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ilaa iyo asaaskii dowladii ku meel gaarka ahayd 2005 wixii ka bilaabmay 10 sanadood ayaa Soomaaliya waxay la lahayd wax la yiraahdo engagement ama ay lug adag oo hawl adag leh kula jirtay Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa marka aanu fiirino 2005 iyo 2015 sanadood halka ay wax noo maraayeen iyo meesha haatan ay Soomaaliya u maraayaan runtii waxa la oran karaa anigu kulay Cabdirashiid ahaan waxaan ku tilmaami karaa inay tahay meel dowladihiina ay nala qireen runtii aad u wanaagsan oo Soomaaliya laga soo qaaday sidii aan kuu sheegay dal aan rajo laga qabin oo feelgaroobay oo guul daraysay haatan Soomaaliya ay tahay dal ku soo noqday maqaamkii caalamka oo kulaha la isku hayo dowladda Soomaaliya in dhibaatooyin wali ay ka hor imaanayaan oo nabadgelyada ku saabsan dhaqaalaha ku saabsan argagixisada ku saabsan xitaa hay'adihii dawliga ah ee dalka ka dhisan ay wali ka taagan yihiin murano iyo is-afgaran waa iyo arrimo badan oo socdo mooshinkan uu kamid yahay ay kamid tahay qaab dhismeedkii maamuladii gobolada dalka loo dhis lahaa arinta walaasheen ay tilmaamtay ee dastuurkii iyo ka hadalkiisii iyo gudiyadii loo baahnaa bal misalama 3 sano la soo dhaafay in la qabto waxaasoo dhan oo jira haddana waxaa laga dhex rajeynayaa in ummadda Soomaalidu ay samir yeelato oo qaranka Soomaalidu uu ka guuro halkii uu yaalay 3 sano ka hor hayga socda oo sida ku socda evolutionka ama tartiibta waxa wanaagsan la haynayo wixii naga khaldamayna la saxayo inay tahay arrin u baahan samir iyo dulqaad waana siyaasadda ra'iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay Cumar Cabdirashiid in la helo kolkii la doortay isaga waxa la yiraahdaa siyaasad xasilooni siyaasadeed in loo helo jamhuuriyadda Soomaalida oo dadka Soomaalidu ay dalkooda aaminaan cid dalkeena noo sifaynaysa oo noo dhisaysa oo wax noo qabanaysa ma jidhay waxa loo baahan yahay dadka Soomaalidu inay aaminaan inay wax qabsadaan oo iyagu markaa ay noqdaan kuwo soo dulqaata sharciyada iyo waxyaabaha isku hor imaanaya iyo qotaxaha badan ee hor yaala ummadeena ee tartiibta u socota waxa loo baahan yahay inaan iska dulqaadno waxyaabaha dhacayo oo dhan la isku hayo khaladaad fara badan waxa la yiri qof aan shaqo qaban khalad ma galeen hadaa meel iska fadhiyo lahayd de khalad ma qabateen marka waxyaabo badan oo khaladaada oo dadku waxay dawladda ka sheegayaan iyo madaxda qaranka oo anagu aan ognahay baa jiro ka badan ba waxay og yihiin haddana taas macnaheedu ma aha in la yiraahdo dowladda Soomaaliya sidaas madaxda qaranka sidaas sida in la isgarab galaa oo la taagaa dhibaatada hadda walaashan ka hadasho oo gada iyo Jubbaland iyo gobolada kale iyo dowladda federaalka ay waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin waxyaabihii dulqaadka oo markii horeba burburka inoo keenay haddii aanu qaran ahayn haddii ummadda Soomaalidu ay isu dulqaadan lahayd oo waxyaabo badan dhici lahaayeen inagoo walaala oo Soomaaliya hool ummada oo ku nool dalkeena ayaan dowladnimadeena iyo qarannimadeena inagu iyo cid kale noo imaan aanu burburin oo inagu mas'uul ka ahayn marka wadadan cusub imika bilaabatay ee tartiibta waxa loo baahan yahay in laga gudbo oo marka loo gudbo 2016 oo la helo hanaankii aan joognay ka wanaagsan oo marka horseeda jamhuuriyad federaal oo degan oo Soomaalidu ay yeelato maastaa ambassador aad baa maastaa maxamed cabdi adiga aan ku imaado comment waa ku darsan kartaa haddii la yiraahdo shukri jawaabaheedii dabcan Soomaaliya waxa la aaminsan yahay 24 sano ugu dambeysay inay la soo daala dhacaysa dagaal sokeeye nimbuka 100 sano maanta ay marayso dabcan dawlad rasmi ah oo federaal ah baa sanadkii 2012 ilaahay ummadda Soomaaliyeed u sahlay waxba qabteen waxna waa ka dhimayeen dabcan sanadka 2016 hiigsiga hadda la filayo hadii uu hirgeli waayo Soomaaliya ma laga yaabaa inay gacan kale ku dhacdo okay bismillah waxaan rabaa horta bal inaan in yar oo comments ku darsado labadii iga horeysay ee maaragtay hadal horta waan ku raacsanahay gabadha ka soo hadlaysa Talyaaniga runtii waxa ay noo sheegteen waa wax badan ka jiraan waxaan rabaa taa wax ka dhex malo waan raacsanahay gabadha fikradeedii iyo ra'yigeeda
waxaan usoo jeesanaa midan ambassadorka noo sheegay horta waxaan aniga ambassadorka iskaga mid nahay oo ilaa muddadii dowladahan la shaqeynayay iyo maantadan la jooga aan ka dad u fikiraan ahayn positive caawiya ku taageera dowladdu si ay uga baxdo dhibaatada dadku ay maanta ku jiraan ilaa haddana sidii bayna naga tahay kulli dadku ay kala rajo dhow yihiin laakiin weli ambassadorku rajo aad u sii fog buu qabaa ilaa 100 sano gaartay inuu wuxuu rabaa dadka ku yiraahdo waxaan rabaa inaan u soo noqdo arrintan uu yiri United Nations iyo kamay dhicin shirkii aan dib ugu soo noqdo 29 la qabtay muqdisho communique ka soo baxay waad xasuusataa oo baarlamaanka ra'iisul baarlamaanku markuu ugu dambeeyay xirahay la soo qoray wixii ku qornaa maamuladii iyo dadkii la isugu yeerayna raali kama ahayn way ka dhaqaaqeen shirki wuuna burburo wax aad Soomaali isku raacsan tahay oo laga sugayay oo hadda la rabay in New York la geeyo oo la hor fariisto runtii arrin fashilantay ahayd wax ka soo baxay in si jiraan adigu markaa marqaati baad iga taabashto wada ogtaa arrimaha meesha looga hadlay sida ay gabadhu u sheegtay laba waxyaalood baa ugu muhiimsanaa oo aan faktigii runta ahayd oo miiska saarneed cidna aysan qarin karin tiigsiga 2016 waxa ay Soomaaliya soo go'aansatay in lagu gaaro iyo ajandaha ay wadato iyo tan labaad oo ah codsi ay dowladda federaalku geysay oo ku saabsanaa tababarka ciidamada oo madaxweynuhu yiri kharashka badan in laga galahay ciidamada maalmo u sii daadgureynayno Uganda iyo Djibouti ma noogu sameeysan wadan gudihiisa oo dhaqaalaha aad ku bixisaan waata hadda go'aanka lagu gaaray in la keeno niman expert oo ciidamada hadda ku tababar wadanka gudihiisa oo ka caawiyo sidii loo dir la argagixisada micnaheedu waxay tahay dhaliiraha iyo waxyaalahan badan oo xagga siyaasaddan lagu fashilmay tan ciidanna lagu fashilmay runtii hadda runtii rabto waxaan kaloo rabaa inaan soo kalsoonida shacabka 2016 kalsoonida shacabka laga yaabo inaan ku soo okay kalsoonida shacabka waa ogtaa in lunta inuu samaanta madaxweynuhu ku lahayn talo maamulada gobolada ka jira kalsooni inta la eg oo maanta madaxweynuhu ku sheegan karo oo oran kar systemkan ay habka loo shaqeeyay in jira adigu laftirka waa ogtaa inay soo baxeen maamulaha hadda ka awood badan dowladda federaalka aanu ka hadlaynaa waa ogtaa taas hadda inaan u galo ma waa fashilada qayb kamid ah weeye dowladda jiritaankeeda maanta aanu ka hadlayno inay sii jirto way waxaan rabaa midda pointiga labaad aan rabaa inaan ku xusay waxay tahay baarlamaanku waa hay'adda ugu sareysa wadanka waa the last pointiga ugu sareeya wadanka sidana mooshin hadda maqsho waa talakeen madaxdii soo maray Soomaaliya wada ogol waxa lagu diray go'aankii baarlamaanka ka soo baxay prime ministerradii ku tageen oo lagu dhaliilahay wax alla wixii dacwada laga soo gudbiyay in lagu xaliyo socodka iyo nidaamka shaqada sida u socon lahayd waxaan rabaa markaa inaan ku sheego hadday maanta taagan tahay oo si ay gabadhu ay sheegtay madaxweynuhu ka walwarsan yahay mooshinka micnaheedu waxay tahay this the time xasan dadku aaminaadana aysan u haynin baarlamaanku inuu yahay the last option kii go'aan ka gaari lahaa inuu wadanka hoggaankiisa sii wado inuu sii wado waana diido waad ogtaa adiga laftirkaaga arrinta hortaala iyo ajandaha iyo waxyaalaha ka soo baxay baarlamaanka waad arkaysa adiga laftirkaaga waxa shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed maanta ay ku aamini karaan maamulka iyo dowladnimada xasan maanta jirtaa oo ay ku sii sugi karaan oo ay ku sii dooran karaan oo xataa loogu dheeraysiin karo 1% option baa Allah ka dhigay miiska uma saarna maanta shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed last minute waxaan rabaa inaan ku soo arko halkee ku soconaa 2016 wali go'aankeeda mala waxay ku dhamaan doontaa inay maamulada gobolada ka jira maanta tashadaan oo ayagu go'aanka isla gaaraan taasina waxaan anagu hadda saadaalin karna ma international community uu ku jira waana la diido waad ogtaa international community anaga keenayna li qaraar iyo meesha aanu tagi lahayn hadii laga waayo muddada soo socota ilaa 6 bilood soo socota inay go'aan ku gaaraan shirka lagu qaban doono hadda Kismaayo oo laga hadlayo waxaan rabaa ambassador waxaan rabaa international community igad iyo waxyaabo badan baa dadkii wareeriyay dowladda federaalka Soomaaliya adigu aad ka tahay mas'uulka ambassadorka miyaysan wali isku filaashay kalsooni gaarin ay iyadu go'aan ka rabto ku soo saartay mise waxay sugaysaa go'aamo ka soo baxay UN iyo igad iyo soo dhow horta waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro walaalkay hadalku yimid horta inaan garanno dalkan Soomaaliya dowladda ka dhisan dowlad tartiib ku timid oo kaliya talisnimo ah ma waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud nin kaliya taliya ah oo xukuma gobol walba oo sidoo doona ka yeela ma waxa weeyaan calaamad ama wax la symbol of Somali nation qaranka Soomaaliyeed ayuu taagan yahay hay'adihii qaranka oo mid walba ay hawsheedii leedahay baarlamaankiisa sida aad sheegtay hawshiisa uu leeyahay madaxweynaha ma xukuma baarlamaanka golaha wasiirada golasi wasiiro oo ka kooban golaha lagu qaybiyay sidii dowlad wadaaga oo ra'iisul wasaare
madax bannaan oo madaxweynaha aanu xukumin laakiin talooyin kulligood ay ka wada systemka Soomaaliya dadku inuu fahmo horta marka ugu horeysa ta kale dowlad goboleedyada baa soo qaaday maamul goboleedyadu waxay yihiin maamulo iyagu iskood u taagan oo uduba u ah salna u ah oo madax bannaan sal u ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inta isdoonaysa anigu waxaan kamid ahaa dadkii wax ka asaasay fikradaasna wax ka dhigay marka horta dadka Soomaalidu maadaama ay tendency ku koreen hal nin baa taliya hal qof baa taliya ay soo arkeen waliba taliskii u dambeeyay oo aan garanayno 12 sanadood wali maskaxdooda waxa ku buuxda Xasan Sheikh oo bila Soomaaliya fadhiya ayaa dalkoo dhan sidoo doona ka yeela in la maaga maaha madaxweynaha waxa uu kamid yahay hay'adaha dastuuriga ee dalka taagan waajibaadkiisuna waxay ku qoran yihiin dastuurka ama ahdiga ku meel gaarka oo leeyahay hawsha asaga laga rabo halkaas ku cayimantaa wixii kale oo odayaan ah maadaama uu yahay madaxweynihii qaranka waa wax kale oo uu gali karo isagu laakiin hay'ad walba haday hawsheeda ku feelgarowda madaxweynuhu shaqo ku leh su'aashaadii marka aan u soo noqdo beesha caalamka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaa iyo ku meel gaarka tii ahayd ama midda tan hadda jira jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaran xora oo xorriyadiisa qaatay oo geeska Afrika ku yaala oo sida hadda shirka uga qayb galay kamida siday doontana yeesha iyadu siyaasaday doontana qaadata weeyaan cid kale oo u talisa male wadamadu waxa ka dhaxeeya wax la yiraahdo dana ayaa ka dhaxeeya ama interest waxa Ingiriisku yiraahdo xiriir la leeyahay kaliyan meel ma taagnaan karno kawa qobnaan karno ama dariska ama beesha caalamka ururada noo yimid ee nacaawimaya sida igado kale ama United Nations oo kale maadaama aan kamidna caawin feer igad kamid baana igad dawladii Maxamed Siyaad Barre Allah naxariistay ayaa wax ka asaastay 1986 oo member nation ah dalal ku jiray igad gadaal ka galay Eritrea kamid ah way ka baxeen kuwa jiraba marka United Nations ka imika kamid baana Soomaaliya ka bixin way kamid tahay cod bay ku leedahay charterka UN-ka dalka ugu xoog weyn adduunka ilaa dalka ugu laciifsan isku xuquuq ayuu siinaya awoodooda haba kala wanaagsan marka horta in la yiraahdo waa loo talayaa iyo dad baa sida doonaan ka yeelayo waan isku baahanahay dalalka noogu deeqay oo noloshooda ugu horeeyay dadkoodii oo noo yimid oo caawimaya waayo security-koodii iyo wadajirkoodii iyo ammaankoodii baa isku wada xiran gabadhu hadda waxay ka hadashay Ethiopia kale ay ka soo qaaday Ethiopia waa dal dariskeena dalka ugu xuduuda dheer oo Soomaaliya waxay kamid yihiin ciidamada AMISOM qayb xoog leh kamid ahaayeen colaadahana dhaxmareen bari hore colaadii heshiiskii waxa ka ugu horeeyay lagu dhameeyay wuxuu ahaa heshiiskii 6 bishii April 1988 uu saxiixay Allah naxariistay Maxamed Siyaad Barre iyo Mingisto Hayle Maryam anaga goobjoog ahaa Addis Ababa lagu saxiixay dagaalkii ka bacdi waxa la iska maxaabiistii la soo weedarsaday waxa lagu heshiiyay caadi in xiriirka laga dhigo oo laba dal oo walaala oo daris laga dhigo nasiib darro dawladda Soomaaliya 3 sano ka bacdi way dhacday dawladda Mingistona waa dhacday dabada Soomaaliya khalaasay gashay dawladda federaalka u horeysay xiriir bay la sameysay maantana Ethiopia kaalin weyn waxay kaga jirtaa dalalka lugta kule arrimaha Soomaaliya dad diidan oo siyaasadaha Ethiopia ee Soomaaliya oo wali ay ku buuxdo siyaasadii hore way jirtaa laakiin fikradda cadow joogtaa ma jireen iyo saaxiib joogtaa wax la yiraahdo dana joogtaa maadaama diblomaasiyadda ka shaqeeya adduunka oo dhan dalalkii adduunka isugu darnaa Germany professorku ogyahay iyo France dadka abuuray weeye 1957 seeladii loo jiray common market maantana horseedka ka ah European Union wadamo badan oo shalay ahaa colaad ayaa maanta saaxiibo ka dhaxeeya marka Uganda iyo Tanzania waa ogsoonta Idi Amin iyo Nyerere markay kala xukumayeen حتى دولة محمد سياد برا وحكي شقيس إنه ده حاجة تقال كي أكسرنا هاي أفريقيا تضبطكي أو حتراوي لها أوغندية تنزانيا دي إدو كلا قاعدة أيام بمليون لمن لها أمسار دير هذا إرياض الشنطة ترى لسكو آمن محمد سياد برا أو أفريقيا أو يوركي لورنشري ملكة أيها تجي أو لودي نيريري إيدي أمين ده حبي أرنت دمي ما أنتنا تنزانيا يوغندا سيلد إيس أفريقيا كمديهن تنزانيا waxay ka qayb gashtay soo kofalda nabadgelyadii lagu xasar Yoweri Museveni Uganda ila dagaal sokeeyay Soomar ayay ka qayb gashay maanta hadii Ethiopia ay ka qayb gashay Soomaaliya soo celinteeda oo qaranimada Soomaaliya ay qayb ka tahay
in sheeko beri hore laga tegay dib looga hadlo waxay ila tahay inaga laftigeena dad aqoon leh baan nahay professorkiina waa nala joogaa in arrimahaas waa loo baahan yahay waxaan rabaa fashilka siyaasadeed ee dowladda iyo xiriirka caalamiga ah aan leenahay dariska iyo international community laba kala tahay siyaasad kasta oo dowladeed iyo nidaam kasta oo dowladeed wuxuu ku xiran yahay saaxiibtinimada iyo xiriirka kala dhexeeya dowladaha iskuma haysana taas waxaanu ku goobeynayna waxa ay tahay maanta maamulka jira ma mathali karaa mujtamaca Soomaaliya fashilaada siyaasadeed ka taagan Soomaaliya qaabka ay u socotay nidaamka ay u socoto laakiin hadda international community iyo waxaan nahay UN-ka inaan taaganahay iyo aad buu horta ambassadorku noogu fasiray laakiin taas topic-na ma ahayn dadka qabana ma ahi anagu international community iyo saaxiibada iyo dadka dhaqaalaha maanta noo haya oo noo taagan oo noo dirrahayo oo dhibaatada aragtay naga cadawga naga qabanaya taa kama aan hadlin waxaan ka hadlay fashilka siyaasadeed dowladnimada maanta ka jirta Soomaaliya waana mahadsanta aad baa maasta taa fashilka laftigeeda baan waxaan oran lahaa in dhibaato jiddo oo Soomaaliya gudaheeda dhib ka jiddo oo waxaanu maadaama ay yihiin waxyaabaha la isku hayo laakiin ma ka gudubnaa oo ma u gudubnaa sidii aan u lahayn guul wada jira oo 2016 ku aadan oo su'aasha ay ambassador su'aal kale kugu daraya diplomatic baa tahay oo ku qadarnaa inaad iga aqoon badan tahay ama dadka inta badan uga aqoon badan tahay xaaladda diplomatic beesha caalamka ama dalalka dariska ilaa iyo xad ma jirtaa meel aysan soo dhaafi karin oo ay shaqadooda ku eg tahay mise Soomaaliya si doonaan bay ka yeeli karaan wajida Soomaaliya waa qaran xor ah oo qaramada caalamka kamid ah wadan aan Soomaaliya oran wadankeeda safaarad ka furo ragga ka soo deg iyo dumarkaaga iyo airportada ka soo gudub xadkaaga ka soo gudub Soomaaliya ma iman karo waxa weeyaan wajida dawladdu inaysan lahayn kaalintii ay dalka oo dhan ku control lahayd waxaana keenay xaaladii la soo maray oo ahayd tartiibta in dawladnimadii Soomaaliya waxyaabaha laga shaqeynayo oo dawladda federaalka golaha wasiiradu ay wadaan gaar ahaan wasiirka gaashaandhigga mudane diini oo uu ku wareegayo oo ciidamadii wadanku lahaa in la abuuro wax la yiraahdo federal army aan ahayn ciidan hal meel laga xukumo sidoo doona marka wadanka yeela ciidan dadweynuhu leeyahay oo federal army aniga waa jirtaa la xuduud aan la dhaafin taas waxyaalaha kamid ah oo dalkii dib sidii muraayad baan u burburna marka in qayb walba la soo qabto oo qaybta kale lagu rakibo oo marka la isku kooleeyo ama guri lagu taro si aan ummadaha ula tartano waxay tahay siyaasad cusub oo la dulqaad u baahan iyo samir ambassador master waayay qadka telefoonka fiirinaya shukri haday ku jirto waa ka daahay raalaha shukri anna waxaan ka codsanayaa haddii shukri ku jirto inuu ii baaqo halo ma marashaa halo 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 السلام عليكم شكري ميا ها وانيغي ولا waayahay shukri dardaarankaga ugu dambeeya iyo waliba xaaladda guud ee Soomaaliya 2016 halka ay ku socoto soo koob wallahi 2016 iyo 2016 ma u malaynayo Soomaaliya in wax ka wanaagsan wixii horay ka dhacay ay ka dhacayaan sababtoo ah shuruudihii nidaamka cusub lagu soo keeni lahaa lagama shaqeyn 3 sano oo la doonayay in la qabto nidaamkii lama qaban haddana xaaladdu say marayso oo qaska la wado oo wadanka laga wado oo maamul goboleedyadan oo federalismka oo qabiilka ku baysgaraysan waa iyadoo qabiil loo sameeyay maamul oo qabiiladii kale kii qabiilkii waaye oo gobolada dadka kale la deganna uu rabo inuu dagaal intuu ku qaado uu asaguna cad kale oo gobol kale oo kuwa kale isla degan yihiin uu soo goosto waa kuwa hadda saad ula socotid Sool iyo Sanaag iyo gobolada dhaxo mudug iyo dagaal baa ka socda oo waa la isku dagaalayaayo waa maamul goboleedyo aan laga taxadirin oo si cadaalad ku waxaysmin waa maamul goboleedyo dad madaxtooyada laga diray ama dad madaxtooyada xoog uga kasbaday inay wax ka aqbasho oo ay yeesho waa labadaas ay u kala qaybsan yihiin kuwa iyagu xoog ku muquuniyeen iyo kuwa iyagu xoog ku yiri naga marka waa wada qabiil weey marka wax soconayo oo dimuqraasiya ahaan iyo Soomaalinimo midna u shaqeynayo ma aha waa maamul qaldan oo 4.5 iyo qabiil ku yimid waa walba Soomaalida inteeda wax garadka oo ay kasoo horjeeday haddana waxa weeye carqaladaynta wadamada Afrikaanka oo dariska nala ah ay ku hayaan
siiba Kenya iyo Ethiopia waa caddaan wey wax la sameeyana ma jiraan marka wax aan sugayno oon ahayn 4.5 waa la rabaa in la soo celiyo odayaal oo maaragtay corrupted ah inta lacag la siiyo dad corrupteduna ay kuraasta iibsadaan oo in almaan horay usoo iibsadaan siday sameeyeenba kuwa hadda horaa loo sii iibsaday waxaa la iibsaday parliamentariankii baa odayaashii laga iibsaday markaas adoo parliamentariankii oo 4.5 oo iibsatay bay la imaanayaan baarlamaanka saasayna ayaantii hore sameeyeen haddana sidaasay sii samaynayaan waxa dan oo ugu jirta waxa kaliya oo danta Soomaaliya maanta ugu jirta waxa weeye inta la kala diro ayagoo dhan in la yiraahdo Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed oo gacanta taagta kaal qofkaad ugu jeceshiin oo adinka maanta intaas oo qofkaad ugu jeceshiin kee rabtaan kaas hal la geeyo meesha 4 sano 5 sanana 2 sano 3 sanana nidaamkii dadkani samayn waayay ha sameeyo dadkaasi markaas nasiibooda oo xora ummadda Soomaaliyeed qofkay rabto rag iyo dumarba qabiil kasta uu yahay wadankiisa xaq buu ku leeyahay oo markaas si cadaalad u hogaamiyo shukran wax hadda aniga ii muuqdo oo kale ma jiraan markii wax la qabtay ma jiraan 3 sanaan ku dhiyaarnay 10 biloodna waxa harsan laguma qaban karo mana la doonayo in la qabto markii dadkii waxa meeshii jooga aan ogolayn inay wixii ay 4 sano loogu talagalay inay ku qabtaan qaban waayay oo halkaas ila Soomaaliya gudaheeda iska harsanahaya shukri aad baad umahadsantahay shukri aad baad umahadsantahay waan kaa mahadcelinaynaa barnaamijka nagala qayb qaadatay adoo jooga dalka Talyaaniga shukri waa saxaafiyad Soomaaliyeed laakiin saxaafiyad Talyaani ah aad baan kaaga mahadcelinayaa shukri barnaamijka nagala qayb qaadatay soo dhaw waaya maxamed aan soo noqdo adiga aan ku imaado maxamed arrimo badan baa jira dhanka mooshinkii xildhibaanadii baarlamaanka ee ku kala aragti duwanaa mooshinkii waa kii gudoomiyaha baarlamaanka uu kasoo saaray go-aankii baa gudoomiyaha baarlamaanka uu kasoo saaray xildhibaanadii waday mooshinka xoogaa arrintaas ayada ah waa ka biyadiidsan yihiin mooshinkii waxaad moodaa weli inaan meel xal loo kelin berito oo 7 bisha ah baa la filayay in la kulmo laakiin waxaa jira warar sheegaya in xildhibaanadii mooshinka waday ay ka biyadiidsan yihiin arrintaas soo dhaw arrintaas waxay ku dambeyn doontaa islaada maanta waxaan dhageysanahay horta intaanan u gelin baarlamaanka waxaan rabaa inaan walaalkay arrin yar oo 1 minute qaadanaysa soo koob fadlan sideedaba baarlamaanku maalintii dhaweyd labadii xildhibaan ee ka hadlayay idaacadda meediyaha oo mathalaya baarlamaanka waxay ku cadeeyeen roolkooda iyo dhibaatada ka jirta Soomaaliya waa mas'uuliyiinta ugu sarreeyay wadanka qaranka ahayd macnaha waxaan rabaa inaan kaba hadalka ah waxna waa wax mucaaradnimo ah waxna waa wax reality ee wadanka ka jira waad dhageysatay baan u maleynayaa systemka ay u cadeeyeen waxa Soomaaliya ka jira wax la beenin kara ma aha waa hay'adii ugu sarreeyay wadanka wax badan bayna ku shucuurta iyo qalbiga ummadda wax badan bay ku abuurtay xaqiiqo badan aysan ogeyn baa banaanka u soo baxay wax laga aaya qaadan kara way waa wax disappointed ku sii sameyn kara dadka maamulka iyo dawladda laga hayo maanta waxaan dhageysanayay laga soo daayay baan maleynaa newsada iyo shalay inay ahayd baan maleynayaa iyagoo baarlamaanka wali hadlayo oo leh mooshinkii kamaananta waxa haysta hadda lagu yiri ra'iisul baarlamaankii iyo xildhibaanadii mooshinka soo gudbiyay oo runtii arrintaasuna laftirkeeda qayb bay ka ahayd in ummadda niyad lagu sii sameeyo waxa weeye xal siyaasadeed looma helin oo baarlamaankii iyo madaxweynaha inta la isu keeno barnaamijkii in dadweynaha shacabka loo cadeeyo lama sameeyne xal mastuur iyo system kale oo ka duwan systemada ma aragtay oo aan weligeed aanan maqalin baarlamaan la heshiisiinayay madaxweyne oo guri inta lagu soo wada xiray leeyahay heshiiyo oo ku gaaray 2016 waa nidaam cusub adduunka hadda ku soo biiray ra'iisul baarlamaankana waa ka yiri guddi baan sameeynaa heshiisiye baarlamaanka iyo madaxweynaha arrinta hoos baa lagu dhameynaya taasina waxyaalaha caqabada ugu weyn geliya siyaasadeed weey waxaan rabaa inaan ku darsado su'aalaha data aan ka boodo 2016 ka aydan 1 minute kaga rabaa inaan ka darso taasa waxa mugdi hadda umada uga jira waxa mugdi badan uga jira sidii lagu gaari lahaa 2016 oo ah waxaa bilowda gorgortan siyaasadeed ee ka dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka oo isku system iyo isku awood iyo isku nidaam isku gorgortamayo maxaan ku yeeshaa iyo maxaad ii ogolaataa iyo maxaan yeelnaa iyo adigu meeqa rabtaa inaad ku soo darsato iyo adigu meeqa rabtaa inaad yeesho taasina ma ah wax looga gudbi karo 2016
ambassadorkuna waa la qabay systemka noocaas ee hadda soo socda oo aad arkaysa interest gaaro shakhsiyada inay ku salaysan tahay nidaamka iyo 4 sano soo socota in lagu saleeyo kula taa ummadda Soomaaliyeed inay shacabka u keenayso daawo iyo laga bixi karo ambassador waa ku imaanaya qadka telefoonkan fiirnaa barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga dadweynaha far badan baa qadka ku jirta qadka waa isbuuc dhaafiyay Adnaan baa waxaan ka codsanayaa inuu dhanka qadka barnaamijka haddii alla yiraahdo noogu furo waxaan ka codsanaynaa barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga mas'uul laguma aflagaadeeyo macnaha deegaan laguma aflagaadeeyo aragtidaada saliimka dareenka shacabka ayaad ku soo bandhigi kartaa haddii alla yiraahdo haddaad isku daydo inaad qof mas'uul ah ama president ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne maamul goboleed ama gobol haddaad isku daydo in aad waxyaabo ka baxsan saxaafadda aad u soo bandhigto durbaba nagala qayb geli doonto barnaamijka waa soo dhaweynayna barnaamijka dareenka shacabka dadweynaha qadka ugu horeeya caawa fiirinaynaa hadday suuragal tahay halo may maqashaa halo halo السلام عليكم عليكم السلام ولا العدك وحير كوري بقاد مقعاقي ماشا كسو هاد ليسي دريكا كو هاد برنامجك هدي هاد لسعود هذا الرالي والله اللي وحوي عبد الحمد صراحة بعد هذا حق صوح يا سويدن عبدي سؤال هو عبدي ما حقدر يسأل برنامج برنامج كان واحد ربيان قدرة وحكى الله ورطة مركو ورهرت وين السلام يا دمان بعدين صحافة تي في هون كل تي في iyo nimankan aqoonyahanada meesha fadhiyo ambassadorka iyo ninka kale aqoonyahanka iyo wada meesha ka hadlaysay xaqiiqdii dareenka shacabka wax badan baa dhigtay laakiin maanta markii ugu horeysay waan sadxay inaan aniga aragtida aan ka soo jeediyo waxa weeye waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr waxyaalood oo ku saabsan hadda xukuumadda jirto adoo soo koobay fadlan 2 daqiiqo haysataa adoo raalli ah waxa weeye madaxweynaha Sheekh Maxamed Sheekh Xasan madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud ma qabo in uu diyaar u yahay inuu Soomaaliya u horseedo wanaag iyo dowladnimo waay sabab laba arrimood isku dulwadaa waa mid inuu kursigiisa ku haysto oo uu ku soo noqnoqdo Soomaalida ay ku noolaato burbur iyo jaahilnimo iyo horkac la'aan iyo dhibaato inay ku jirto abraata ka saar midda labaad oo ah in Muqdisho ay ahaato kaliya meesha kaliya indhaha Soomaaliya labadaas baa yani ku jirto waxay Soomaaliya hadii labadaas abdi adoo raalli ah abdi aan gogosanay fadlan waa ku siinaa waqti abdi Muqdisho tiri buu rabaa in indhaha caalamka soo jeedo Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliya waa magaalada Soomaaliya saldhigga u ah maxaad uga jeedaa ereyga aad leedahay Muqdisho rabaa inuu indhaha caalamka tuso waxa uu soo jeedaa waxa weeye saad og tahay Soomaaliya hadda maanta dhaqaale ku filan oo ay isku kaabisay ma haysato macaawina ay dibadda ka heshaa abdi waxaan filayaa inaad qadka ka baxday adoo raalli waa kaana ilaa barnaamijka nagala qayb qaadatay qadka xiga waa soo dhaweynaya barnaamijka dareenka shacabka barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga aragtidiina waa muhiim inaad dareenkeena ka dhiibataan qodobka aan ka hadlayno qodobka inta badan wuxuu xoog saarayaa shirka ka dhacay qaramada midoobay 7aad guuridii kasoo wareegtay oo ay ka qayb galeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu iyo waxyaabihii ugu dambeeyay oo Soomaaliya xagga mooshinkii waxyaabo la mid ah laakiin muhiimadda barnaamijku waa shirkaasi maxaa laga filan karay madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu ka wada qayb galay shirkaasi oo dhacdo ugu dad badan ay u arkaan arrinta inay tahay soo dhaw qofka ku xiga waa soo dhaweynaa hal ma maqashaa bira waan ku maqlaa waa gaanbax oo ka soo wacay Sweden gaanbax xogaa codkaaga telefoon ka fogay adoo raalliya si aan si fiican isugu maqalno soo dhaw maxaa ku daraysaa barnaamijka hadda duraan aad iyo ma santa ku fulfilin waa salaamaya haddii noqoto xaqiiqdii walaa madaxweyne walaa baarlamaan walaa xukuumad gaalisku waa wada leeyihiin cid gooni loo saari kara male laakiin waxaa la safiirka inaan weydiiyo hal hadda uu yiri safiirka waxaa la ii weydiistay heshiiska maxamed siyaad barre iyo wada gaban magashta kadib dagaalada dhexeena heshiiska nooc waxa dhul bal loo micneeyo sida ogna siyaasada dagaalada dhacay Itoobiya iyo Soomaaliya aad baa umaasantahay marka waxaan ku daro saxaafada raaliga haye maalinta Soomaaliya iyo mooshinka iyo waa iska caadi laakiin Soomaaliya waxa soconaysa waana soconaynaa
لكن سفير كان يعرف معلش توبي كويس بنحاول نعمل أنا عليك aad baa umahadsantahay gaadax oo ku maqlahayaa ambaasadharka waanu ku gudbinaynaa siyaasiga loogama dhaxo su-aasha shacabka ama dareenkooda ay ku muujinayaan inay weydiiyaan barnaamijka dareenka shacabkuna waa waxyaabaha aad u tixgeliyo waanu u gudbin doonaa haddii la yidhaha qadka xiga waa soo dhaweynaa halo may maqashaa halo alo asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaagii meeshaa kasoo dareenka ku hadda barnaamijka adoo raalli walaalo waa hooyo soomaaliyeed london aan ka soo wacayaa hooyo soo dhow waxaan rabaa inaan marka hore salaamo safiirka iyo maxamed iyo adigaba runtii horta maxamed caawa waxaan ka malaysanay inaan ka maqalnay shacabka soomaaliyeed baan aad u taageeri jirnay especially aniga markuu maaragtay doodaha ka qayb galayo runtii waa wuxuu muujin jiray dalka in la dejiyo in maaragtay kelmadiisa ahayd system aniga waxaan jeclahay dowladnimadeed laakiin caawa waxaa moodaa inuu gadaal u noqday maxamed horta taas maaragtay waa ka xumahay dalkan wuxuu u baahan yahay in dadka niyadda loo dejiyo dowladdan waa dowlad curdana runtii maaragtay 24 sanana dalka dagaalaa ka socday saxaafadda laftirkeeda waxaa la rabaa inay ahaato maxaa la yidhaahdaa wadaniyiin waa inay noqdaan wax kasta waa inayna faagfaagin marka run ahaantii waa ka xumahay madaxweynihii hala rido ma xumo laakiin maxaa lagu bedelayaa wixii lagu bedelayo in la haayo waa muhiim soo ma madaxweynaha hal rido anagu maana oran martidana ma oran dadweynaha soo hadlana ma oran xagee ka keenta ereygaas madaxweynaha hal rido madaxweynaha waqti buu qaatay waqti baan u dhimay mooshinkaad ka hadlayseen mooshinka in la taageero in maaragtay xildhibaanada mooshinka keenay waxyaabo noocaas aha dooda ku jirtay xildhibaanada iyagaaba ka noqday mooshinka keenay anigu runtii madaxweynahana soomaali ahaan ma ogi aqoon kalena umalihi xilna dowladda kama haayo laakiin intaas waxaan jecelnahay inay system dowladda inay wadanku system u yeesho hooyo soomaaliyeed waa kaaga mahadcelinaa barnaamijka nagala qayb qaadatay aad baanad umahadsantahay aragtidaada saliimka aad kusoo bandhigtay barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga dabcan qofka ugu dambeeyaan fiirinhaya hadday suuragal tahay qofka ugu dambeeya barnaamijka caawa ka qayb qaadan doona ayaan fiirinhayaa halo may maqashaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam magacaagii meeshaa kasoo dareenka ku hadda barnaamijka adoo raalli hawa xuseen shifila kasoo wacay ugu celi hadalka magaca xuseen soo dhawow maxaa ku daraysaa barnaamijka waxyar baan rabay inaan ka qayb qaato marka hore waa idin salaamay adi iyo martida sharafta leh anigu waxaan u dhashay maxay ahayd gobolka waqooyi bari kenya si fiican balse soomaali ahay soomaali haddaan ahayna caalamku waan leeyahay taasaan aaminsanahay oo iligiina ma kenyaanka ila aaminsanba marka waxaan leeyahay horta dowladnimada aad baan ugu qeydaysnayn oo marquna caalanka hala taago dowladda soomaaliya ha dhalato niyadan ku hayni oo in badan waan u ordnay balse markaan hadda aan islahayn way tilaabsatay oo meel fiican bay maraysaa yaa waxaad moodaa in dumis xoog uu ku imaaday taasoo runtii hadda dowladdan madaxweyne xasan uu hogaaminayo dhaliilo badan aan ku aragno oo ah in dalkiiba gumaysi gacanta loo geliyey taasina waxaa xaqiiqa waxaa xaqiijini karaa siyaasiga hadda meesha fadhiyo muxuu ahaa ambassador isagoo mahadsan dhufays adoo raalli ah dhufays adoo raalli ah fadlan waa gogosanaynaa adoo raalli 1 minute baan rabaa inaad kusoo koobto dhufays xoogaa dowladda federaalka ee soomaaliya waad dhalishay waxaad sheegtay inaad ku dhalatay kenya soomaalida kenya degana aad tahay dhaliil noocaas oo kale ma leeyihiin dowladda kenya oo adigu aad meesha deegaankooda kasoo jeedo dowladda kenya deegaankooda anoo kasoo jeedo anoo ayaga maxay ahayd taageeraynin anoo ayaga maxay ahayd difaac aanan islahayn balse waxaa dhaba oo jirta dowladda kenya inay soomaali u talisoba ma garatay si fiican aad baa umahadsantaha dhufays waan kaa mahadcelinaynaa barnaamijka nagala qayb qaadatay dabcan madashaan kusoo noqonaa dadweynaha intaas ayaan ku hakinhayaa waqti baa haye daban ambassador dadweyne nin ka mid a dadweynaha su-aal buu ku weydiiyey wuxuu ku yiri 88 aad sheegayso la saxiixa waxaa ka dambeeyey dagaal kale oo maaqaan soonihii 96 inay tahay u malaynaa suu isagoo hadalka ula jeeday oo soona muqdisho ka dhacay dabcan matiibaad weli ku taagan tahay buu yiri heshiiskaas mar burburay oo dagaal kale ka dambeeyey xagee heshiiska hadda ka jira buu ku leeyahay soo dhow runtii waa mahadsan yahay walaalkay in dadku waa dagaalaa mar kasta waqtigu laakiin dagaalka anigu aan ka hadlayay wuxuu ahaa
dagaalkii Soomaali iyo Ethiopia dhex maray ee 77 dagaal shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliya dhex maray ma ahayn wuxuu ahaa dagaal siyaasadaysan markaa joogay ay lug ku lahaayeen oo abaabul ay labada dhinacba ka galeen labadii hogaamiye markaas labada dowlad ku hogaaminayay kolkii dhibaato badan dhacday dabadeed 77 10 sano ka bacdi waxay yaqiiqsadeen inaan lagu sii jiri karin sidaas waxay abuurteen wax la yiraahdo igad oo madaxweynihii markaas dowladda jamhuuriyadda Djibouti u talinaya Allah u naxariistay Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon oo isugu keenay wadamadii dariska si dhibaatooyinkii abaaraha iyo deganaansho la'aanta gobolka jiray marka meeshii ugu horeeyay Mengistu Haile Mariam iyo Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ay isku gacan qaadeen Djibouti ba ahayd waxaana mahadda lahaa dowladda walaalaheena dariskeena madaxweynaheedii markaa jiray Allah u naxariistay Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon marka historiga wuxuu abuuray 2 sano ka bacdi in Maxamed Siyaad Barre iyo Mengistu ay heshiis kala saxiixdaan sidaan sheegay 6 Abriil 1988 kaasoo dhammaystiray in labada dal ay maxaabiistii ay kala haysteen xiriirka la caadeeyo laakiin haddana labada dalba waxaa haystay dhibaatooyin aan labada dowladood haysana kacdoonna ka socday Ethiopia iyo kacdoonna ka socday Soomaaliya akharkiina labadii dowladoodba sanad ka bacdi waa kuwa bar marka waxaan ku soo koobayaa kaliya Ethiopia iyo Soomaaliya waa taariikhdaas walaal soo bilow waxba ka dambeeyay ku leeyahay mas'uul waxa ka dambeeyay waxay ahaayeen wax dowladda mas'uul ka ahaayeen ma ahayn waxay ahaayeen dagaalo badan oo Soomaalida ama ururadan diinta ku qaraabanaya ahaadeen ama dowladda Ethiopia oo ciidamadoodu marar far badan ka soo talaabeen maadaama aysan dalba dowlad ka jirin xadka Soomaalida oo gobolada Gado iyo gobolada dhexe iyo ay talaabeen marka qura oo Ethiopia ay soo gashay si rasmi ah waxay ahayd markii unadu ay ansixisay ama UN-ku in dowladii fadhiday Baydhabo protection ama ilaalin loo sameeyo taasoo markii ciidamada Ethiopia soo galeen aakhiritaankiina 17 sano ka bacdi dowladii Ethiopia ay markaa ka dhisteen Meles madaxda ka ahaa oo taageereysay dowladii TFG-da loo jiray ay Muqdisho tageen oo taa iyaduna faa'iidada ay lahayd ahayd 17 sano ka bacdi in villa Soomaaliya sidii Maxamed Siyaad Barre uga baxa calankii Soomaaliya laga taago oo dowladnimo itimaado oo ciidamada Uganda yimaadaan oo ciidamada Burundi yimaadaan oo ciidamada Djibouti yimaadaan oo unadu timaado waayo Soomaaliya waxay gashay sidii muraayadii qabqablayaal iyo dagaal marka dadka Soomaalidu qiimeyn baa waxa loo baahan yahay gacantu laba dhinac bay leedahay hal dhinac in laga fiiriyo dhinaca kalena laga eego oo maxaa khasaaraha maxaa faa'iidaha oo faragelinta caalamka nooga timid ilaa imikana socota oo madaxdii markaa joogtay 22,000 oo ciidan iyo in ka badan baa maanta jooga marka Soomaalidu may marka wallahi intaan Maxamed ku soo gudbin adoo raale intaan Maxamed ku soo gudbin bogga Facebook aan dushan ka maraya hadii la yiraahdo waxa beddelkooda ka soo dheebtay Cabdirasaaq Axmed Karaama injineer Maxamed Mira Farax garyaqaan Munasir Daha sidoo kale waxa ka soo dheebtay Amar Gaagaare Suldaan Kayse Umar Nuur iyo waliba Barre Cadde Gawaaje iyo waliba dadweyne aad u far badan halkan lagu soo koobi karin ma soo wada koobi karo dadweyne ma wada akhri karo Maxamed aan adiga ku imaado Maxamed su'aal kale aan ku raacay rabaa waxaa jira tacadiye loo geysto dad badan oo Soomaali ama ku nool Muqdisho ama gobolada ku nool oo ay u geystaan ciidamada AMISOM waa su'aal muhiim ah inaad fahantaan waan filahay waxa ugu dambeeyay wiilkii Soomaaliyeed oo banooniga dheerahay oo maalin dhaweyd ciidamada AMISOM si gardarra ay ku toogteen sidoo kale saxaafiyaal baa xiran maxaad ka leedahay arintaas waxaan rabaa inay way horta su'aasheedii inaan qof soo kafadlo oo shacabka Soomaaliyeed caaw u cadeeyo sidaad iga barateen horta sideedaba aniga waxaan ahay nin ku taagan in la helo system iyo qarannimo dowladnimo ku dhisan oo ay dadka dhibaataysan maanta Soomaaliya ku nabad ku helaan iyo nolol taas waa wax naga go'an weyn iga go'an tahay shalana waa iga go'aneed maantana waa iga go'an tahay system kasta oo dowladeed jirana waan ku taageerayaa waxa kaliya oo caawa aniga nidaamka kan aan ka hadlaynaa igeliya waxay tahay waxa ii muuqda ififaale mugdi ah oo igeliyay in systemka iyo dareenkayga ay wax ka bedesho ogaasyadii shalay baarlamaanka maanta jira sameeyay waxa bedelahaya dan shakhsiyadeed oo loogu magac daray maamul goboleedyo oo dantooda ka shaqeynaya mustaqbalka soo socda 10 sano nagu hogaamin doono cidii ay doonaan iyo waxa ay doonaan in ummadda u sameeyaan waxaan rabaa tusaale ahaan inaan dadkan walaalaha Soomaalida aan gaarsiiyo xal uma arko in maanta baarlamaanka maanta jira mid laga soo
laga keeno maamul goboleedyada inuu bedelo oo systemkaas ay ku xoogeystaan nimanka maanta maamul goboleedyada madaxdu u ah awalan taasoo aan u arkay shakhsiyad tan kale haddaan baarlamaan u baahannahay waxaa jira 275 markay ugu yaraato dakhliga Soomaaliya maanta waxyaalaha ku baxa laga hadlahayo more than 50 million oo dollars lagu tilmaamay kaliya maalgelinta baarlamaanka Soomaaliya federaalka ah lagu maalgelinayo in aqoontooda dib sare loo qaado maalin walba tababar baa loo qaadaa dowladaha dariska la geeyaa dowladaha shisheeya la geeyaa Yurub la keenaa si aqoontooda baarlamaanka at least ay wax u fahmaan dadkii sidaa ahaa ee maalgeliyay waxa lagu soo baray at least inay joogaan wax dhaama laba ark inta laga keen la gobolada example waxa rabaa ummadda Soomaaliyeed aan soo qaado maanta maamulada ka dhisan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo aad aragteen baarlamaanada aad maanta ka arkaysaan ay tahay wax shakhsi oo gaar ah oo asagu gacantiisa ku sameystay ku rimiye oo aysan daacad ka ahayn ummaduna aysan macnaha aysan raali ka ahayn maamuladaas maanta ka jira at least waxaan rabaa shacabka ummadda Soomaaliyeed ah inaan helno system dadka daaweyn karo oo ka saari karo dhibaatooyinka maanta Soomaaliya ka jira waana mahadsantiin waxaan rabaa inaan soo noqdo arrintan kan ka dhacday oo Soomaaliya lagu wixii waxay ii daba joogtaa xildhibaanadii maalinta ka hadlayay baarlamaankan oo idinki maqlaayay waxa ay ku joogaan igad wadanka Soomaaliya wax haba yaraatay akhbaar oo ka hayna lama arko waxaan ka ognahay mana waa kuwa ku cadeynay telefishinka hortiisa la soo fadhiyay wax kasta oo khaladaho dhaca maanta ummadda Soomaaliyeed cid kala xisaabtantana ma haysto dawlad ka hadasha oo aan ku mashquulsanayn siyaasadahan iyo dhibaatadan mogiye dawlad ka hadashan ilaa hadda waa laanahay shacabka ayaga laga sugaya marka waxa ay rabaan maanta inay istaagaan oo ay ka jawaabaan dhibaatada dadka ku dhacaysa waana mahadsantii aad baa maastay ambassador waxa tiri dhig bay noo horeen waa wax wanaagsan dadka Soomaaliyeed waa soo dhaweynaya way dadaalaya ciidamada AMISOM laakiin waxay man inta badan sameeyaan taadiyo illa xisaabtantana aysan jirin adiga xukuumadda aad safiirka ka tahay ma awoodi weydina xakamayto taadiyada ay AMISOM u geysato shacabka Soomaaliyeed dhanka kale marka la fiiriyo saxaafiyaal baa si gardaraa ku xirxiran arrintaas maxaad ka leedahay horta waxaan jeclaan lahaa inaan arrinta walaalkay uu tilmaamay oo ah arrintan dareenka abuurtay oo dhibaatooyinkan markasta AMISOM iyo ciidamadan wadanka soo galay ay mararka qaarkood wax ula kaca maaha ee waa wax dhacay annagoo qorana maaha meel kastoo ciidamada ajnabiga dalalka la geeyey Congo way ka dhaceen waxay ka jiraan Yemen waa aragtay waxa ka dhacaya ciidamada huwanta oo haatan raba inay la dagaalaan ciidamadii dowladdiidka xitaa dad Soomaaliyeed baa dhibaato ka soo gaadhay oo aan shaqada ku lahayn xoogaga isku hadeeyay marka ciidamo ajnabi oo dalkaaga yimaada oo taageero ku siinaya ama wiil ay shiireen sida hadda aad sheegtay ahaata ama dhacdooyinkii marka iyo ka dhacay ama ahaadeen ama gobolada kale laftigooda dhacdooyin ka dhacay waa wax dhacaya arrintaasna hogaanka u sareeyo AMISOM ama United Nations New York xataa waa looga hadlay in arrimaha la yareeyo meelaha qaarkoodna waxa ballanqaad baa jira wax la yiraahdo compensation magdhow in laga bixiyo waxyaabaha inkaas oo dhacay ama AMISOM hogaankeeda sare ee Muqdisho fadhiyana ama Africa Union ha ahaadeen way ka geysteen raaligelin way ka bixiyeen arrintaasna waa arrimo maaragtay runtii la taaban karo oo in laga shaqeeyo rabo waxaan anigu jeclaan lahaa oo runtii xoog saari lahaa waxaasoo dhan oo dhacay waxaba noo horseeday inagoo meel cilla isdhignay ummadda Soomaalida ayaa loo baahan yahay gacnaha intay isqabsadaan halganka dheer ee loogu jiro in qarannimo Soomaaliyeed iyo dowladnimo Soomaaliyeed lagu doono in gacnaha la isqabsado oo taa iyada ay noqoto 2016 laga gungaaro dowlad rasmi ah oo xildhibaano markaa masala oo deegaanadoodii tagi kara oo qof walba deegaanka laga soo doortay uu masali karayo in la helo xildhibaanada dalka u sareeya oo hay'adda u sareysana waxaan kaloo cadeyn lahaa dadka ka fikiraya madaxweynaha raba inuu xukun boobo ama sii haysto fikradaas Xasan Sheekh kulay anigu intaan ka aqaano ninay ku jirta maaha tartankan dadku ula siman yahay waqtigii uu tartan galo hadii nin walba calafkiisa sidii loo ogaana rag badan boo tartamay oo madaxweynayaal ahaa ayaa xukunka waayay kuwana waa ku soo baxeen marka nasiibkiisu dadka ula siman yahay laakiin xukun baan haysanaya oo xoog ku haysanaya fikradda nimanka ka fikiraya labada gaarin hal sano baa dhimane walaalayaasha Soomaaliyeed waxa loo baahan inay istijaan oo xoog saaraan in hawlaha loo baahan yahay madaxweyne kaliya maaha
howlo badan baa qaranka Soomaaliya ka socda marka arrintaas waxaan oran lahaa hal laga fikro dardaarka hal sakali fadlan soo koob fadlan waxaan shacabka ummadda Soomaaliyeed rabaa inaan ku wargeliyo oo aan ka codsanayaa inaan codkayga ku biiriyo dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Muqdisho bisha 2 Oktoobar oo lagu xiray wariyaasha iyo saxaafadda meediyaha Universal TV runtii waxaan u aragnaa aragti ahaan sidii systemka loo maray dadkaas wariyaasha inay ahayn wax khaldan ilaa haddana aan warcad dowladda laga haynin waxaan ka codsanaynaa inay arrintaa ku caawiyaan shacabka Soomaaliyeed oo dadkaas xorriyadoodii loo soo celiyo waan mahadsantihiin aad waa maastaa barnaamijkeena dareenka shacabka iyo siyaasiga noo soo taxna taariikh caawa 9 soo gabagabeynaa mahadceliya ambassador Cabdirashiid Aadan Said oo ah ambassadorka wareega ee dowladda federaalka Soomaaliya dhawaana ka soo noqday magaalada New York dalka Mareykanka halkaas uu goobjoog ka ahaa shirka halkaas ka dhacay sidoo kale aan mahadceliyo Dr. Maxamed Cabdi Cumar oo ah kalkaaliye professor jaamacadda London Metropolitan University ee ku taala waqooyiga magaalada London sidoo kale aan mahadceliyo Shukri Saciid oo barnaamijka ka qayb qaato saxaafiyad Soomaaliyeed laakiin u shaqeysa kana hawlgasha saxaafadda dalka Talyaaniga sidoo kale aan u mahadceliyo engineer Adnan oo barnaamijka qiimaha badan caaw noo daadahaya aan u mahadceliyo intii soo gashay qadka intii u soo gali weyday inta daawanayso sida wanaagsan u fadhida iyo waliba intii bogga Facebook aan ka gaaray waa inaan akhriyo laakiin dusha aan ka akhriyay barnaamijka mid lamida intaan ku kulmi doono annagoo isku duuban oo waliba u hadlahayo Durraan Cabdullaahi Shruuc waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wayga conflict resolution waxa